Shirkadda samaysa gawaarida ee Hyundai oo laga leeyahay waddanka Kuuriyada Koonfureed ayaa soo saartay gaari ay ugu magac dartay Sonata oo ku shaqaynaya tamarta uu ka helo cadceedda. Gaarigan ay Kuuriya samaysay ayaa waxa uu 60% tamarta cadceedda uu uga baahan yahay ka heli karaa saanqaafka kore ee baabuurkan oo ay cadceeddu ku dhacdo muddo 6 saacadood ah. Dabka uu gaariga Sonata ka qaato cadceedda ayaa waxa uu ku socon karaa ilaa 1300 oo kiiloomitir oo u dhiganta 800 oo mayl. Shirkadda Hyundai ayaa waxa ay sheegtay inay gawaaridii hore ay u soo saartay laftooda saqafka kore haddii loo xiro cadceedda dabka heli karaan. Hyundai ayaa sheegtay in soo saaridda gawaarida cadceedda ku shaqaynaya ay yaraynayso wasaqeynta hawada, sidoo kalena ay yaraynayso kaarboonka hawada lagu sii daayo. Gaarigan cusub ee la magac baxay Sonata oo ah nooca raaxada ayaa matoorkiisa u samaysan yahay in uu tamar ka qaato cadceedda. Gawaaridan cusub oo ku shaqeeya cadceedda ayaa shirkaddu qorsheynaysaa in ay marka ugu horeysay u iibgeyso suuqa waqooyiga Mareykanka iyo Kuuriya, balse hadda diyaar u ahayn inay meelo kale u iibgeyso. Shirkadda Hyundai ayaan weli shaacin qiimaha ay ku fariisan doonaan baabuurtan cusub. Dalka Britain ayaa sidoo kale ka mid ah wadamada soo saara gawaarida korontada ku shaqeeya, waxaana markii ugu horeysay suuqyada dalka UK lagu soo bandhigay bishii hore. Shirkadda Hyundai ma aha shirkaddii ugu horeysay oo soo saarta gawaarida cadceedda ku shaqeeya, balse waxaa ka horeeyay soo saaridda baabuurtan shirkadda lagu magacaabo Toyota oo iyadu hore u soo saartay gawaari ku shaqeeya cadceedda oo lagu magacaabo Prius iyo Rivero. Dalka Netherlandina waxa uu sameeyay gawaari yaryar oo koronto ku shaqeeya isla markaana dab yar cadceedda ka qaata si bateriga gaariga ay dab u siiyaan. Gaarigan ku shaqeeya korontada ayaa qiimihiisa waxaa lagu qiyaasay 149,000 oo euro oo u dhiganta 137,000 pound, iyadoo lagu wado in la suuq geeyo sanadka 2021. waad ku mahadsantahay daawashadaada. Haddaba haddii aad ku cusub tahay channelka Ogaalsan, subscribe dheh si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena cusub.